Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Misku aragtay kuus jilcan oo madow sida sawirada kore ka muuqda kuna dul samaysma meelaha dhaawacu ka gaaray ama horey lagaaga duray ama lagaa qalay. Haddii jawaabtu haa tahay casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iideyso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End. Nabraha kore waxaa afka qalaad lagu dhahaa keloid, Soomaalidu qaar waxay u taqaanaa ababalo. Adiga magaca aad u taqaanid qaybta commentiska noogu qor fadlan. Badanaa nabrahan waxay ku samaysmaan xabadka, dhagaha, daamanka, garbaha, gacmaha, inkastoo meel walba ay ku samaysmi karaan. Alle wuxuu jirkeena siiyey awood dhaawacyadu ku bogsiiyo. Si dhaawac u reysto waxaa nabarada ku dul samaysma haar ama toxob, kaasoo maalmo kadib fuqa ama baaba'a, kadibna meeshii oo baanatay ayaa la arkaa. Laakiin dadka qaarkood oo ciladan qaba, haartii ama toxobtii dhaawac ku dul samaysantay intay baabi'i lahayd way sii kortaa oo kuus dheeraad ah ayay isku beddeshaa, kaasoo noqon kara mid aan baabi'in. ciladan dhib kale ma keento, cudur xunna iskuma beddesho, laakiin foolxumo ayay jirka ka dhigtaa. Mararka qaarna cuncun iyo dikaan ayaa laga dareemaa markay muddo ka soo wareegato. Dhaawacyada maqaarka ee sidaa noqon kara waxaa ugu horreeya findoobka, gubashada, nabraha busbuska, dheg-durashada, xagtinta, dhaawacyada qalliinka iyo meelaha jirka laga tallaalay. Waxaa la qiyaasaa 10% dadka inay qabaan ciladan, rag iyo dumarna ay u wada siman yihiin. Qaladaadka ay sameeyaan dadka qaba ciladan waa inay ogolaadaan in laga qalo kuuskaas, taasoon xal ahayn maadaama kuuskii mid la mid ah ama mid ka weyn uu ku dul samaysmi doono dhaawaca qalliinka cusub. Sababtoo ah dadku badanaa ma fahansan ciladan waxa keenay inay tahay maqaarkaaga oo sidan sameeya markay nabruhu reysanayaan. Sidee marka loo xallin karaa? Waxaa jiro cirbado lagu duro kuuskan kuwaasoo si tartiib ah u shuuqiyo una yareeyo cabirkooda. Daawooyinkaas oo kala nuuc ah. Sidoo kale haddii la qalayo waa in baraf ama qabow la adeegsadaa si loo jaro. Farsamadaasoo loo yaqaano cryosurgery. Badanaa qaabkan haddii la isticmaalo ma soo laabato, waxaana farsamooyinkan sameeyo dhakhaatiirta ku takhasustay maqaarka ama qalliimada qurxinta jirka. Qaabka saddexaad ee lagu xalliyo waa isticmaalka laserka, laakiin waxaa badanaa dhacdo inuusan nabarka wada baabi'aynin haddii la isku dayana inuu kuus kala samaysmo. Marka talada ugu habboon waa ku daaweynta cirbadda ama qalliinka barafka. Halkaas ayaan kaga baxaya casharkan, waana mahadsantahay.